madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo safar degdeg ah ugu baxay Nairobi ayaan ilaa hadda ku soo laaban Muqdisho. Qorshihiisu wuxuu ahaa in 8 ilaa 10 saacadood halkaas uu ku sugnaado, laakiin safarkiisii waa la hor istaagay waxaana la geeyay magaalada Naivasha ee dalka Kenya. xogta waxaan ku helaynaa in halkaas ay ku sugan yihiin safiiro iyo diblomaasiyiin shisheeye oo uu war kaga diiday xerada Xalane. madaxweynaha waa la shirqoolaa la leeyahay, si ba'an ayaana loogu bahdilayaa gudaha waddankaas. maalinimadii maanta oo axad ahayd ayuu ka baxay Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya. safarkiisaasi wuxuu qorshuhu ahaa 10 saacadood kadib inuu xamar ku soo laabto, oo ma ahayn safar uu sii qorsheeyay meel ka baxsan Nairobi inuu ku tago. laakiin waxaa la sheegay in William Ruto ah hogaamiyaha Kenya uu ku ballansaday magaaladaas Naivasha uuna u ballamiyay safiiro iyo rag uu Xalane war kaga diiday. indhaha ayaana loo shitaa la yiri madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. haddaba safarkiisan muxuu quseeyay? maxay tahay sababta meel ka baxsan Nairobi loo geeyay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud? waayo cid safarkiisaasi ku wehelisay. sidoo kale safarkan ma ahayn mid la sii shaaciyay oo lamaba ogeyn, si kadis ayuuna ku baxay. 45 cisho kadib madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud markii 15 May waqtigiisa uu dhamaaday oo xukunka xooga ku joogay sida mucaarad ku eedeeyeen, markiisii ugu horeysay ayuu aaday dalka dibadiisa. dhibaatadan ayuuna la kulmay. ma mucaaradku wax ay ka shaqeeyana mise waa wax beesha caalamku iyada si iskeeda ay ugu shaqeynayso? waxaan il gaara ku eegaynaa waxa ka socda magaaladaas. madaxweynuhuna dhibaatada amni uu wajahayo waxa ka runa ayaan diiradda saaraynaa. soo dhawow saaxib, ha ilaawin aad nagu soo biirto, channelka subscribe soo tiraahdo, saaxiibadana usii share garayso. waa mahadsan tahay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa safar aan horey loo sii shaacin maanta ugu ambabaxay dalka Kenya, sida xogaha ay xaqiijinayaan. waana la arkayay gaadiid isaga galbinaya, iyada oo wadooyinka Muqdisho roobka iyo biyuhu ay ku hooreen ayuu madaxweynuhu ka baxay Muqdisho. wararka la helayo ila diblomaasiyad ayaa sheegay in safarkan uu diiradda saaraya arrimo la xiriira amniga, siyaasadda gudaha Soomaaliya iyo xaaladda guud xilligan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee jira ee sii xoogaysanaya iyo xal u helidooda. Xasan Sheikh safarkiisa intaabuu daaranaa oo waa la isku ogaa, waa lagu ballansanaa, laakiin waxba isbedelay markii uu tagay Kenya sida ay xogtu leedahay. madaxweynuhu wuxuu qorshuhu ahaa inuu magaalada Nairobi kula kulmo madax ka tirsan dowladda Kenya iyo wakiilo ka socda hay-adaha caalamiga ah ee sida dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin ajandaha kulankaas. hoos kasi ayaa ku dhacday baa la yiri madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud wax uusan ku sii talagalin, jadwalkiisana ku jirin, ajandahana aan qayb ka ahayn ayuu la kulmay madaxweynaha. safarkan ayaa waxa uu ku soo aaday xilli mucaaradka Soomaaliya ay ku baaqeen qabashada doorasho toos ah oo degdeg ah, iyadoo ay dalbanayaan inay helaan doorasho ay ku wada qanacsan yihiin dhinacyada siyaasadeed. doodaha ku saabsan nooca doorashada iyo hanaanka siyaasadeed ee dalka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay sii xoogaysanayay, iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mucaaradkuba ay soo bandhigeen aragtiyo kala duwan oo ku saabsan mustaqbalka doorashooyinka. ilaa ay hadda villa Soomaaliya marka wax war rasmi ah kama aysan soo saarin safarka madaxweynaha ee Kenya iyo ujeedooyinka rasmiga ah ee magaalada Naivasha loo geeyay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. hase yeeshee safarkan wuxuu imaanayaa xilli uu dalka wajahayo xiisad siyaasadeed oo xasaasiya iyo arrimaha la xiriira muranka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka. madaxtooyadii qarankaba ee madaxweynaha xafiiskiisu ahayd ilaa ay hadda kama hadlin safarka Kenya iyo midkan gobol ka tirsan ee dalka Kenya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud loogu dhibaateeyay. si kastaba Soomaaliya iyo Kenya ayaa xiriir wanaagsan lahaa muddooyinkii ugu dambeeyay, laakiin hadda waxaa muuqato xiriirkaasi wanaagsanaa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud lagu dhakray ama lagu khiyaameeyay bacdama loo ballamiyay rag uu horey amaradooda u diiday, lana geeyay meel ka baxsan Nairobi oo xitaa wax kasta ay ugu imaan karaan maadaama security-ga ama ilaalada uu wato aysan aad u badnayn. ilaa ay hadda xog rasmi ah lagama hayo madaxweynaha. waxay qorshuhu ahayd baa la yiri in laga hadlo amniga, ganacsiga, siyaasadda, waxbarashada iyo arrimaha doorashooyinka, laakiin intiiba maxaa laga hadlaa? jadwalkii dhammaa waa isbedelay. madaxweynuhuna wuxuu gala baa la yiri xaalad aan inaba caadi ahayn. ilaa ay hadda xog kale oo intaas dheeriya oo soo baxaysa lama hayo. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna wuxuu ahaa madaxweynaha markaasi muddo dhaafka ku joogay xukunka oo ay mucaaradkiisu ku eedeynayeen inuu qaadayo tallaabooyin guracan, isla markaana uu ku xadgudbayo dastuurka dalka sida ay mucaaradku ku eedeeyeen. waxaa kaloo mucaaradku madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kol sii horeysa markaas ay sheegeen in xukun boob uu wado, sidoo kalena aan loo dulqaadan karin madaxweynaha tallaabooyinka uu qaadayo. tani ugu dambeyn waxay keentay hadda caawa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud
xanibaad iyo xayiraad ku wajahayo gudaha dalka Kenya magaaladaas aan hore idila soo wadaagana hadda uu ku sugan yahay villa Soomaaliya lama og inay war ka soo saari doonto dhacdan ama ay ka hadli doonto laakiin wararku waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud wax kasta ayaa ku qabsan kara gudaha wadankaas wararka hordhaca qaarkood waxay leeyihiin siyaasiyiinta mucaaradka ayaa shirqoolkan maleegay ka shaqeeyay dhaqaale badan ku bixiyay dacwado dhinacyo badan la ku furay taas ayaana keentay baa la yiri in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudaha magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya uu ku wajaho weerar halisa iyo dhibaatadan loogu geysanayo gudaha wadankaas sideebaad u aragtaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markiisii ugu horeysay ee uu safro May 15keeda wixii ka dambeeyay dhibaatadan iyo culeyskan siyaasadeed ayuu la kulmay haddii safarra kuwan ka fog oo maalmo iyo toddobaadyo qaadan kara uu aadana waxaaba laga cabsi qabaa baa leeyahay in xitaa toos loo afgambiyo oo mucaaradkiisu ay dhagaandhiriyaan ama maleegaan kala furfurka ciidanka awoodiisa in la maroojiyo ama awood marooqsi lagu sameeyo ama dhibaatooyin kale loo geysto oo gudaha wadanka dib ugu soo laaban waayo sideebaad u aragtaa maxaase kaaga baxay adehan aragtada qeyd faalada noogu reeb ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka channelka subscribe soo tiraada gambaleelka furato saaxiibadana u sii share gareyso waa mahadsantahay saaxiib muuqaalkan la daawo